الرحيم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan ardayda iyo macallimiinta iyo dhammaan inta ku xiran channelka mar kale iyo macalinka maadada xisaabta iyo fiisiska. maanta hadduu ilaahay karaan noqdo waxaan soo gudbin doonaa imtixaankii Somali Federal Ministry of Education, Culture and Higher Education oo ah wasaaradda waxbarashada khaasatan galaaska form 4 ay galeen sanad waxbarasheedka 2021-2022 ayaan ka shaqeyn doonaa insha Allah. isla socod wanaagsan. qaybta koowaad aan ku hormar doonaa. qaybta koowaad marka waxa waaye part 1 waa circle dooro the letter xarafka of the correct answer, jawaabta saxda ah. waa 25 su'aal oo min 2 dhibco ah. su'aasha koowaad aan ku hormar doonaa. haddii ay tahay markii kugu horeyso aad soo booqanayso channelka, please subscribe saar, videoga like saar, u share gari asxaabtaada. haddii uu subscribe ku saareen aad iyo aad ugu mahadsan tahay. la wadaag asxaabta fanfoorada ah, waayo imtixaanaadka waa ay soo dhaweeyeen. muraajaco guud ayay u noqon doontaa dhammaan ardayda sanadkan u fadhiisanaya imtixaanka 2022-2023. su-aasha koowaad ka hormar doonaa waa cos A plus sin cos A cos B oo laga jaray sin A sin B. waxaana la siiyay 4 jawaab. waxaana la siiyay qaybta koowaad waxaana la siiyay sin A plus B. B waxaana la siiyay cos A plus B. C waxaana la siiyay cos A minus B. D waxaana isna sin A cos B. haddaba su-aasha koowaad oo ah cos A cos B minus sin A sin B waxay ka timid B oo ah jawaabta saxda ah, taasoo la micno ah cos A plus B. cos A plus B hadii la furfuro waxay noqonaysaa ama waxaa loo furfuraa cos A cos B minus sin A sin B. su-aasha koowaad qaabkaas ayaan ugu jawaabeynaa. su-aasha labaad aan aragnaa iyadana the exact value qiimaha saxda ah cos 30 degree by using ayadoo la isticmaalayo half angle formula. cos 30 degree waxay la mid tahay A waxaa lagu siiyay radical 2/3, B waxaa lagu siiyay radical 2/2, C waxaana haysanaa half, D waxaa haysanaa radical 3/2. jawaabta saxda waa D oo ah radical 3/2. haddii kale waxaa isticmaali kartaa qaabkii waad furfuri kartaa cos 30 degree adoo isticmaalaya half angle identities. waxaa lagu furfuraa 30 degree-ga waxaa ku dhacaysa 2 waxay noqonaysaa cos 60 degree. waxaa isticmaalaysaa qaacidadii ahayd 1 minus cos theta loo qaybshay 2. cos 60 degree-ga waxaad ku bedelinaysaa angle-ka ku bedelinaysaa. markaad furfurto ugu dambeyn waxaa ku soo bixi doonto jawaabta saxda oo ah radical 3/2. waxaanu gudbi doonaa su-aasha saddexaad the probability ihtimaalka of failing lagu dhacayo exam. imtixaan ayaa probability-giis waxaa lagu dhacaa boqolkiiba 0.1. dan haddaba the probability muxuu noqonayaa ihtimaalka of passing lagu gudbayo imtixaankaas. haddii imtixaanka lagu dhacayo uu yahay 0.1 waa maxay probability-ga ama ihtimaalka imtixaankaasi lagu baasi karo? jawaabta saxda waxay noqonaysaa P oo ah 0.9. halashan 0.1 waxaa kasoo haraya inta kala soo hartay waxay noqonayaan waa inta lagu baasi karo. waa boqolkiiba 0.9 ayaa imtixaanka lagu baasi karaa. su-aasha afraad the number of ways inta qaab that 5 text books 5 book can be arranged lagu habeyn karo in shelf iskafaalo. waxaa lagu siiyay A waxaa lagu siiyay 140 hab, B waxaa lagu siiyay 120 hab, C waxaa lagu siiyay 130 hab, D waa 150 hab. haddaba waxaan haysanaa 5 text books 5 book. imise qaab ayaa loogu habeyn karaa iskafaalo? 5taas book waxaa loo saari karaa waa B oo ah 120 hab ayaa loo saari karaa. see ku timid waxay ku imaaday 5 Victoria furfureynaa waxay noqonaysaa 5 times 4 times 3 times 2 iyo times 1 oo waxba soo kordhinayay. 5 ku dhufo 4 waxay noqonaysaa 20 waxaa ku dhufanaya 3 waa 60 waxaad ku dhufanaysaa 2 waxay noqonaysaa marka waa 120. haddaba 5taas book si iskafaalada waxaa loogu saari karaa ama iskafaalada waxaa loogu habeyn karaa 120 hab ayaa loogu habeyn karaa. 120 hab ayaa loogu habeyn karaa. su-aasha lixaad ayaan gudagalaynaa. if haddii z1 ay la mid tahay 2 minus 5i
z2 na ay tahay 1 plus 4i then hadaba the addition waa maxay isku darka z1 iyo z2 waxaan haysanaa z1 waxaana la siiyey z1 waxaan haysanaa 2 minus 5i plus waxaan ku dareynaa z2 oo ah 1 plus 4i waxaan laga rabaa marka waa maxay addition ka labada qayb maxaan sameey jirnay labada waxaan isku dareynaa real number-ka iyo waxaan isku dareynaa labada imaginary number-ka 2 plus 1 waxay noqonaysaa waa 3 minus plus waxay noqonaysaa minus 5i plus 4i minus 5i iyo plus 4i way kala jarmaan waxay noo soo baxayso 1 oo minus ah saas darteed waxaan leenahay 1 kaasna lama muujinayo waxaan leenahay i waxay noo soo baxday marka 3 minus i jawaabta saxda marka waxay noqonaysaa jawaabta saxda waxay noqonaysaa su-aasha shanaad aan aragno ayadana su-aasha shanaad the imaginary part qaybta imaginary-ga of the complex number ee tirooyinka kan oo waxaan la siiyay zatoon waxaan haysnaa 2 plus 3i waxaan la rabaa marka imaginary number inaan soo saarno saan naqaano qaybta 2da waa real number qaybta calaamada ayada wadatsana waa imaginary number hadaba imaginary number waxay noqonaysaa a waxaan la siiyay imaginary number of complex number 2 b waxaan haysanaa imaginary number of complex number 3i iyo imaginary number of complex number uu yahay i iyo waxaan la siiyay imaginary number 3 hadaba jawaabta saxda waa d oo ah 3 halashan 2 plus 3i markay tahay 2 waa real number 3i dana waa imaginary number hadaba imaginary number waxa lagu aqoonsanaa maxay tahay haday raacdo calaamadaas ayadana waxay muujinaysaa oo kaliya inuu yahay imaginary number laakiin xisaab ahaan lama muujiyo su-aasha lixaad ayaanu gudbaynaa su-aasha lixaad if haddii z1 ay la mid tahay 2 minus 5i z2 na ay tahay 1 plus 4i hadaba isku darkooda waxay noqonaysaa a 4 minus i b 3 plus i c 3 minus i iyo d oo 4 plus i jawaabta saxda marka waa soo saareynaa waxaan leenahay calculation aan xisaabi doonaa waxaan la siiyay marka 2 minus 5i plus waxaan ku dareynaa 1 plus 4i waxaan leenahay marka labada real isku dar labada imaginary isku dar 2 plus 1 waxay noqonaysaa 3 minus 5i plus 4i plus 4i way kala jarmaan waxay noo soo baxayso minus i jawaabta saxda marka waxay noqonaysaa waa c oo ah 3 minus i su-aasha toddobaad aan gali doonaa imtixaanka maadada xisaabta ee form 4ka dugsiga sare dugsiyeedka 2021-2022 laga qaaday ama ay galeen ardada su-aasha toddobaad marks dhibcaha of maryama waxay gashay 6 maado ayay u gashay khaasatan fasalka 8aadka maado kamid ah waxay keentay 24 mid 26 mid 35 mid 28 midna 50 midna 14 hadaba waxaan laga rabaa marka su-aashu marka waxay tahay the range waa maxay range-ga inaan soo saarnaa rabnaa marka si range-ga u helno waxaan sameyn doonaa range-ga waxaa lagu helaa range-ga marka waxaan ku soo saareynaa tirada ugu sareeyo iyo waxaan kala jari doonaa tirada ugu hooseeya oo ah the maximum iyo waxaan kala jari doonaa iyo the minimum tirada ugu badan waa 14 tirada ugu badan waa 50 tirada ugu yarna waa 14 marka hadaan labada kala goon waxaan soo baxayso 36 hadaba range-ga wuxuu noqonayaa marka ku soo laaban jawaabeen range-ga wuxuu noqonayaa waa b oo ah 36 su-aasha 8aad if the variance of data haddii xogta datada uu yahay 49 variance-ga waa maxay standard deviation-ka saa ku naqiino waxaa lagu helaa waa square root of variance oo laga saar square root ama xididka laga saar marka duu variance-gu yahay 49 hadaba standard deviation wuxuu noqonayaa 7 hadaba jawaabta saxda ah waa c oo ah 7 waxaan gali doonaa su-aasha 9aad the exact value waa maxay qiimaha saxda ah lim x approach 0 waxaana la siiyay marka 18 hadaba jawaabta saxda waxay noqonaysaa d oo 18 sababtoo ah hore waxaan u naqiinay qaacidada ahayd ama xeerkii ahay constant number hadduu yahay tirada ilaan x wax lagu bedelayo ma lahan saas darteed 18 kaduusan x wadanin haddaba constant number hadduu yahay isla numberka constantiga ayaa inoo soo laabanaya su-aasha 10aad ayaan gudagalaynaa
the exact value waa maxay qiimaha saxda ah oo lim x approaches negative infinity 2 minus 1 over x tanoo kala shaqo waa marka maxaan sameynaynaa oo ku bedelaynaa tirada ayaan bedelaynaa x approaches negative infinity 2 minus 1 over x qiimaha x waxaan ku bedelaynaa infinity waxaan leenahay is equal to negative 1 over negative infinity is equal to minus tirada loo qeybay infinity waa 0 2 minus 0 waxay noo soo baxayso 2 waxaan usoo laabanaynaa jawaabaheena oo ah negative waa c oo ah 2 waxaan u gudbaynaa su-aasha 11 waxaan leenahay iyadana if a given function waxaa lagu siiyey function oo ah 6x square minus 8x plus 1 then derivative of y with respect to x is waxay la mid tahay a waxaa lagu siiyey 12x plus 8 b waxaa lagu siiyey 12x minus 8 c waxaa lagu siiyey 12x square plus 8 iyo d waxaa lagu siiyey 12x haddaba tan oo kale waa soo xalinaynaa waxaan haysanaa function oo ah 6x square minus 8x plus 1 ayaan haysanaa waxaan tagi doonaa meel banaan waayo meel banaan aan tagaynaa kadibna waa soo xalinaynaa waxaan haysanaa function oo ah 6x square minus 8x plus 1 waxaan rabnaa marka derivative aan ku sameeyno kadibna jawaabta saxda aan soo saarno waxaan leenahay derivative markuu maxaa la sameyn jiray oo galaa ku soo dhafo sareeyaha waxaan leenahay waa 2 alif x minus 8 ayuu noqonayaa x kana waa laga tagaa marka jawaab saxda waxay kadib waxaan imaan doonaa jawaabaheena afarta jawaabta saxda marka waxay noo soo baxday b oo ah 2 alif x minus 8 su-aasha 12 the derivative of 40 afartana derivative lagu sameeyo waxay noqonaysaa waa c oo ah 0 ila number constant haddii derivative lagu sameeyo waxay noqonaysaa 0 su-aasha 13 the integration haddii integration laga saaro 2 waxay noo soo baxaysaa waa c oo ah 2x plus c jawaabta saxda waa 2x plus c su-aasha 14 the conjugate of 3 plus i tiradan waxaan rabnaa conjugate inaan soo saarno conjugate waxay tahay calaamada isbedela oo kaliya waxay noo soo baxaysaa d oo ah 3 minus i waxay noqonaysaa meesha pluska waxaa noqonaa minus conjugate lagu sameeyo waa 3 minus i su-aasha 15 the number of two letter tirada laba xaraf ka mid ah haddii permutation ahaan loogu shaqeeyo that can be formed loo heli karo from the letters xarfaha oo burco xarfaha waxaan leenahay waan soo xalinaynaa waxaan ku xalinaynaa waxaan leenahay waa 5 permutation 2 5 tan waxay ka imaaday ereyga burco wuxuu ku kooban yahay 5 xaraf waayahay qaabka waxaan usoo xalin doonaa qaacidada permutation aan isticmaalaynaa n victoria divide by n minus r victoria kadib waxaan leenahay n waxaan haysanaa 5 victoria hooseyaan waxaan haysanaa 5 minus 2 victoria 5i waxay la mid tahay 5 laga jaro 2 waa 3 victoria 5 dila furfur waxay noqonaya times 4 times 3i 3i victoria isla baxayaan haddaba 5 ku dhuf 4 meeqa waaye 20 marka waxay noo soo baxayso waa a oo ah 20 su-aash 17 ayaan gudagalaynaa in how many ways imise qaab kaan amran gabadha lagu magacaabo iyo fardowsa iyo zaynab arrange ay u gali karaan in a queue qaabkii oo ahay taabuurka imise qaab ayaa taabuur loo gelin karaa afar saddexaas gabdho marka waa maxay waa 3 victoria oo kaliya waxaa leenahay intaan afurfurayna waa 3 times 2 times 1 waxaan soo kornaa 3 2 qurb meeqa waa 6 haddaba saddexdan gabdho amran iyo fardows iyo zaynab taabuurka waxay u gali karaan ama safka waxay u gali karaan 6 xab ayaa u gali karaan jawaab saxda waa b su-aasha 18 the value qiimaha of sin x plus 2 waxay la mid tahay 3 will be waxay noqonaysaa marka 180 degree iyo 270 waxaan leenahay meel banaan imaanay waxaan leenahay sin x plus 2 is equal 3 2da wareejinayna waxaan leenahay sin x is equal 3 negative 2 waxaan leenahay sin x waxay la mid tahay 1 sinka goorma 1 la mid yahay waa markuu yahay sin 90 degree sin 90 degree marka maxaa waa 1 haddaba jawaab saxda waxay noqonaysaa 90 degree jawaabta saxda waxay noqonaysaa c oo ah 90 degree su-aasha 19 aan aragna iyadana in the recent presidential election doorasho dhawaan dhacday ka dhacday Soomaaliya 5 candidates 5 musharax ayaa u tartamay ayaa waxa helay codadka ugu horeeya waxay heleen 1
حسن شيخ محمود وحوه لي كنتني لبعض فرماجة كنتي سجال غير أفرت الضوء دنيا وحوه اللي إحدى نشان هذا وحنا قرأ مين كنا سو صارنا مين كا عيار بنينا سو صارنا مين كا دام قشنا وهذا أفريج كوكلا سو حسابه مين كمركز أقوالنا علينا هاي أسكو دردرينا كدبنا عن قابين دونا أنت ترى عيان مدح كترين دونا علينا مركز كنتني لبعض كنتني الله waxaan ku dareynaa كنتني sagaal waxaan ku dareynaa 47 waxaan ku sii dareynaa 65 intaas aan xisaabino markaan xisaabino kadib waxaan oo soo bixi doonto miinka waxaan haysanaa كنتني الله intooda marka total oo xisaabeynaa marka isku dardarno inta scientific ah gasho waxay noo soo bixayso 223 aan qaybinaynaa waa si xubnood waa 4 qof marka inta isku qaybinaa noo soo bixayso 55.75 jawaabta saxda marka waxay noqonaysaa 55.75 waa su'aasha C waxay noqonaysaa C oo ah 55.75 waxaan gali doonaa su'aasha labaatanaad waxaan leenahay su'aasha labaatanaad the coordinates of stationary point waxaan rabaa stationary point inaan soo saarno waxaan leeyahay function oo ah x square minus 4x waxay la mid tahay x iyo y aan soo raadinaynaa isla socod wanaagsan waxaan sameeynaa function ka soo qaadanaynaa y waxay la mid tahay x square minus 4x marka hore derivative ku sameyn doonaa 2 horgalaha ku dhufo waa 2x minus 4 kadib waxaan soo raadin doonaa y is equal 2x minus 4 is equal 0 eber la ekaysiinayna marka waxaan leenahay 2x waxay la mid tahay negative 4 wareeji waa 4 inta labo qayb inta labo qayb 2 x waxay la mid tahay marka 2 x waxaan soo helnaa 2 dan waxaan soo raadinaynaa y da marka intaan soo saarin y da waxaan ku soo saaraynaa functionkii asalka ayaan soo qaadanaynaa tiro walbo x waxaan ku bedelinaynaa 2 waayahay saamaha ku soo helnaa inta 2 u bedel 2 isku wargaray minus 4 intana 2 waa leenahay si ku labadii afar labadii afwan inta waa labadii laba jeer la isku dhufto waxay noo soo baxaysaa 4 minus 4 hadii lagu dhufto 2 waa 8 4 minus 8 waxay noo soo baxaysaa x y waa soo helnay x waxaan soo helnay 2 y na waxaan soo helnay minus 4 jawaab saxda waa d oo 2 iyo comma negative 4 waxaan kala doonaa su'aasha 21aad حفصة قبل لو مقعاوه كويس امتحان على قاعدة أو عشان مادو they are all weight equal دمان تود خاب سميد أيوة كشيء if I grades دبعة أي كانت ديين دبعة أي كانت وحلوسي وكونتن تضباطا سديتا يزديد تضباطا أيوة هاي كانت سديتا يزديد هذا what is her current average grade عرفنا grade كده average عين أو صوصانه average كعلو على total كتروين كاسو دردريسا كده ماذا حد كترنيسا مرك أنت ولا أسكو دردرنا حينوصل بحيث سدح بقول لحدا يلح أو قايبين هنا مثل ما دواي وشن أو قايبين هنا سدح بقول لحدا يلح ديشان لو قايب حينوصل بحيث 73.2 جواب صح هنا قلنا A و 73.2 وعن قد بين سؤال شلبي لباتنات if an event دي dhacdada ama waqti dhaca uu yahay impossible mid aan macquul ahayn then the probability wuxuu noqonayaa b oo 0 ilaan tiro kasta ilaan dhug wuxuu dhici karaa oo kaliya 6 xab hadii 6 xab laga waayo qaabkan macquulka ahayn waa 0 ilaan dhugna ma laha dhinac 0 ah su'aasha waxaan galaan su'aasha 23aad in the integration of sin x hadii integration laga saaro wuxuu noqonayaa b oo minus ama negative ama minus cos x plus c su'aasha 24aad ayaan guda galaynaa ayadana Mohamed ninka loo magacaabo the following score wuxuu keensaday score kan soo socda oo maadooyinka waa 60 70 80 50 his mood waxa la rabaa moodkina soo saarno moodkina waxa la wadaa waxay tahay tirada ugu badan ee soo laabata hadaba tirada ugu badan soo laabata waa b oo 80 ayaa laba jeer soo laabatay moodka marka uu noqonayaa 80 سؤال لباتنات the exact value قيمة صحدا cos 40 cos 50 degree minus sin 40 times sin 50 degree وحنا قنايا تنا وكله وحوا cos a plus b هذا وترى وحن فرفر دونا cos a plus b أيام فرفرنا مركز cos a وحنا يسنا cos a وحنا يسنا و cos a و 40 degree
plus cos 90 cos b na waxaan haysanaa 50 degree cos b na waxaan haysanaa 50 degree marka cos 40 iyo 50 isku darayna waxay noo soo baxayso cos 90 degree cos 90 degree na waxay la mid tahay waa 0 jawaabta saxda marka waa b oo ah 0